iyadoo ay sii kordhayso isku hub urursiga iyo colaadda u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland gaar ahaan deegaanka Tukaraq ayaa waxa soo baxaya baaqyo beesha caalamka loo jeediyay oo ku aadan sidii loo dimin lahaa colaadaasi dalalka beesha caalamka ayaa dawladaha gobolka Geeska Afrika ee igaad u xilsaaray inay xaliyaan dagaalka dhexmaray Somaliland iyo Puntland sidaasi waxa warbaahinta u xaqiijiyay ila xogaala sida xogahani ay sheegayaan wadamada beesha caalamku waxay dalalka gobolka bariga Afrika ee ku buhoobay igaad u xilsaareen inay u hawlgalaan sidii xaalad nabadeed loogu soo dabaali lahaa colaadda Tukaraq ee u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland warku waxa uu xaqiijinayaa in wadamadani ay si gaar ah daminta xiisada dagaalka Somaliland iyo Puntland ugu xilsaareen dawladda Itoobiya oo xiriir dhinacyo badan leh Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland wararku waxay intaasi ku darayaan in Itoobiya socdaal la xiriira nabad raadinta iyo doonista ay Itoobiya ku doonayso inaan dagaal daba dhicin ay ku tagaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa goor dhaweyd ugu baaqday dalalka beesha caalamka inay awoodooda isugu geeyaan siday maamulka Puntland ugu qancin lahaayeen inuu joojiyo dagaalada ay ku soo qaadayaan Somaliland laakiin iyadoo beesha caalamku ay u howlan tahay deminta dagaal mar dama qarxa ayaa waxa maamulka Puntland ayadu ku howlan tahay abaabul dagaal waxaana madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Camay toddobaadkan uu ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan dagaal lagu hoobto oo u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo Puntland sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna baaqyo kala duwan u diray maamulada Somaliland iyo Puntland kaasi oo kaga codsanayo sidii loo damin lahaa colaadda u dhaxaysa labadaasi maamul beesha caalamka ayaa dawladda Itoobiya u arkaa inay kaalin firfircoon ka qaadan karto daminta colaadaha maadaama maamulada Puntland iyo Somaliland ay xiriir dhow la leedahay mid walbana ay ka caawiso arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin dhanka militariga colaadaha iyo dagaalada ka dhaca dalka Soomaaliya ayaa inta badan waxay salka la galaan dawladda Itoobiya ugu dambeyntina hay'adda ayaa go'aan ka gaadha daminta colaadahaasi iyo sii socodkooda maadaama ay xiriir dhow la leedahay maamul goboleedyada ka dhisan dalka Soomaaliya kuwaasi oo ay ka taageerto dhanka militariga iyadoo marar badan maamul goboleedyada ku caawisa hub iyo saanad militari oo sii horisa colaadaha inta badan ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya maamulka Somaliland ayaa si isdaba jooga ugu celceliya beesha caalamku inay kaalin firfircoon ka qaadato daminta colaadaasi laakiin dhanka Puntland ilaa iyo hadda wax wara kama soo bixin oo ku aadan kaalinta beesha caalamka ay ka qaadanayso colaadda Tukaraq waxayse mas'uuliyiinta maamulka Puntland maalmihii ugu dambeeyay ku celinayeen inay qaadi doonaan weerar rogaar celisa oo ay ku qabsanayaan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn